وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. داوديال waxaad la socoteen darsigii tafsiirka ahaa si toos ah idinkiga imaanayay masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Nairobi waxaana soo jeedinayay Sheekh Maxamed Cabdi Umal xafidahullah sida dhaqanka noo ahaydba mar walba oo darsigu dhamaado sheekha waxaan u bandhignaa aan weydiinaa wixii su'aalo ah ee aad noo soo gudbiseen. Su'aasha koobaad haddaan maanta ku bilaabo waxay leedahay sheekh waxay leedahay waxaan joogaa Mareykanka waxaan hadda ogaaday inaan ku bilaabay soonka anoo jiro 15 jir laakiin waxaan ku qaangaaray dabcan waa gabar waxaan ku qaangaaray 9 sano qaladkana waxaa lahaa ehelkayga marka waxyaabo soonkii hore dhaafay maxaan ka sameeyaa bismillaahir rahmaanir rahiim mas'uuliyaddu waxay saarnayd dadkii waalidka ahaa in ay caruurta baraan qaangaadhka iyo waajibaadka ka dhasha arrintaasi marka khaladkeeda waxaa iska lahaa waalidka mas'uuliyadda dayaceen Allahna tabaaraka wa tacaala waa ka quraanku ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara gaar ahaan hooyooyinka waxaa loo baahan yahay gabdhaha inay baraan intaysan qaangaadhin maxaa lagu qaangaaraa ilaan inta badan waxaa laga yaabaa inay da' u moodayaan 15 inay gaadhaan inay baraan qaangaadhka markay gabadhu qaangaadhana inay baraan keliyata ma aha waajibaadkaa saa ku saarane xataa sidii ay ula dhaqmi lahayd dhiigga caadada iyo istaahirintii iyo axkaamta ka dhalanaysa iyo caruurta iyagoo yaryar haddaan loo sheegin waxyaalaha loo sheegin sidan oo kale dhacaysa gabadh 9 jir ku qaangaadhay oo 15 sano markay jirto ogaatay inay qaangaadh tahay muddada inta la egda waajibaadkii dayacaysay waa runtii nasiib xumo waalidkaana mas'uuliyadda iska leh waxaan leenahay gabadhaas soo qalle sanadahaas ka tagay sidii kolba aad u awoodo soomankii ka tagay soo celi insha Allah taala soo qalle wallahu a'lam jazakallahu khayran khayral jazaa sa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh qof ishalmaamay isagoo sooman wuxuuna rabay inuu wax cuno ama cabo miyaan ka celiyaa mise waan u daayaa maadaama uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri ruuxaasi ishalmaamay hadduu wax cuno ama cabo ilaahay baa quudiyay ruuxa ishalmaama oo halmaanka dartii cunto ama cabitaan wixii soonka jabinaya sameeya sax isagu waa salmaansan yahay oo dambi ka soo gaari maayo waana macna nabiga sallallahu alayhi wasallam soonkiisa hawato ilaahay baa quudiyay oo cabitaanka siiyay laakiin macnaheedu ma aha ruuxa arkayay ha fiirsado oo ha u daayo ma aha macnaha waxa laga wadaa dambi ma leh isagu dambi ma laha maadaama uu salmaansan yahay laakiin ruuxan og inuu sooman yahay ee arkaya isagoo sooman inuu salmaansan yahay oo cunto cunayo waxa loo baahan inuu baraarujiyo waxa la mid oo kale to ruux salaad tukanaya oo salaadiisii khaldaya oo kale waa inaad baraarujiso yani ruux muxuu ahay jahli iyo aqoon darro ay u geynayso dambi galaya hadaad aragto waa inaad baraarujiso tiraado sax ma aha iska daa marka waxa way baraarujintu waa mas'ala kale ilaahay baa cunto siiyada waxa laga hadlayaa bimacnaa ruuxani dambi male soonkiisina ma jabin laana waa ishalmaansan yahay halmaanka iyo ismootiiskana ummadan ilaahay waa ka koryeelay la tu'akhidna in nasina wa akhtana fi sahih muslim qad fa'altu walid tabaaraka wa ta'ala waa idin ka yeelay inaana idin qabanin wax halmaan idin ka dhacay iyo ismootiis wax idin ka dhacay marka isaga loo qaban maayo laakiin ruuxa arkaya waa inuu baraarujiyo warwaad soomaneed waa inuu xusuusiyo wallahu a'lam jazakallahu khayran sa'iladan waxay leedahay sheekh ninkayga ayaa hadda ka hor igu furay 2 dalqadood muddo kadib haddana wuxuu igu furay 1 dalqad ah waxa ka soo wareegtay 2 sano inta isaga ayaan u xayirnaa oo ilaaha waan ku qabaa anna waxaan ku iri saddexdii way ku dhamaatay sheekhowna kala bixi maxaan sameeyaa ومسألة خلافية وهي دلقده ما إسراعان مش اسم الرعان لو جور بي من لو دلقود دعدي بدنا مد دعدي مركا لو دلقودود أي دعين لو دلقودود ما إسراعين مش مد بالغ السوق قاضية ومسألة خلافية وهي فوق هذا بدن كود وحي قوان إن دلقده إسراعيان
oo laba haddii la yidhaahdo ay labadu wada dhacayaan saddex haddii la yidhaahdo ay saddexdu israacayaan madhabka markii la qabtana gabadha wax ku laabani ma jirto dalqadii way dhamaadeen markii madhabka la qabto fuqaha badan baana sida qaba madhab kale jiro oo ilaa xilligii saxaabada jiray oo dhahaya dalqaduhu isma raacaan oo haddii saddex la yidhaahdo mid baa dhacaysa haddii laba yidhaahdo hal un baa dhacaysa muxuu ahaay waana madhabka daahirka qur-aanku ku tusayo الطلاق مرتان يعني وحوي طلاق هوينك لوgu noqon karayo waa laba goor rajciga laga hadlaya الطلاق طلاق dumarka la soo xishan karo waa laba goor lama dhihin dalqataan waxa la yiri maratan wayna kala duwan yihiin yani luqada carabiga maratan iyo dalqataan kadal qadi saddexaad ba marka gadaal laga sheegay فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره marka saddex dalqadood oo kala go'an buu quraanku sheegay حديث النبي في صحيح مسلم نوت المامية سيداس دراديد مذهبك إلى حق بدني وحوي هاي إن يسند القدوه إسراع أو أي علماء بدن إياد لفتي قبان صحابة إن بدن وكم إذا أي قبين ظاهر كقرآن كنا كم مقدة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كسر أروري مركا مذهبك هدي لقبته القدوه اسمر رعان وحين نقول إسا نينكو هدو قبضة كل لابتي intaynan yani furitaankii dambe ciidadiisii intaysan dhamaysan haduu soo ceshaday madhabka dambe hadii la qabto dalqad baa markaa u soo noqonaysa marka ninbu u yahay iyaduna xaaskii way xaas bay u tahay oo xarigii dalqadaas soo noqonaysa hadii uusan soo ceshanin oo furitaankii dambe markuu sameeyay intayna ciidada ka bixin uusan soo ceshaninna tii markaasi way dhamaatay oo way baa'intay iyadoo muxuu ahaay dalqadi laaban tahay bay ciidadii ka baxday way baa'intay marka xor way marka way guursan kartaa asaga markuu leeyahay muddada inta leeg xaaskaygii baa tahay muxuu ku doodayaa isweydiin leh ma dalqadii horu dood ka qaba war waan ku soo ceshaday buu leeyahay waxa u baahan tahay in la fahmo wallahu a'lam جزاك الله خيرا خير الجزاء سائلتان waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabar uur leh oo joogta Yurub saacadii baa nagu dheeraaday oo sinaba waan u soomi waayay marka ma maskiin baan quudiyaa mise dib baan ka soo qaleeyaa marar badan baan runtii ku celcelinay shariicada Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu jecel yahay hadduu wax fududeyntiisa in la qaato sida uu u jecel yahay casiimada in la qaataba fududeynta in la qaatana waa jecel yahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamayo shariicada taysiirkeeda waxa kamid ah fududeynteeda waxa kamid ah gabdhaha uur kale iyo kuwa nuujinaya way afuri karaan xadiid khaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam kaga hadlay oo uu leeyahay ilaahay waa ka dajiyay haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale soonka waa ka dajiyay way afuri karayaan haddii waqtigu ku dheer yahay oo hadda sida Yurub iyo meelaha ka jirtana kuma sii jirtaba haddii soonkii isku wadi weydo ama iyada lafaheeda u baqdo ama ilmahan ay nuujinayso ama ka uurka ay ku sida u baqdo ama iyaduba ay ku rafaadayso soonka way iska afuraysaa kadibna xilliga jaanis shobay soo qaleynaysaa wallahu a'lam جزاك الله خيرا خير الجزاء سائل كان حوليه الشيخ نين والن ayaa kufsaday gabar uur bayn yeelatay canug ayay dhashay canuga garac miyuu noqonayaa maadaama ninka uu waalnaa takaaliifna aysan saarnayn niyadiisuna aysan ku jirin inuu zinaysto ama xumaan uu sameeyo laba arrimood baan kala qaadaynaa dambi ma meeshii ka dhacay iyo ilmaha xukunkiisa xagga dambiga ninkan waalana dambi male gabadha la xoogayna dambi male laana iyadana waa mukraha ruuxa muslimka ana wixii lagu qasbo oo loo xoog sheegto dambi ka soo gaari maayo asaguna waaba majnuun oo waa waalan yahay qalin ma saarna saas daraadeed falka meesha ka dhacay dambi kama dhalanayo la dhanka gabadha la boobay wala ninkan waalantoona ama ilmaha markii la yiraahdo ilmuhu waa garac laana ilmaha inuu garac noqdo aabalaan inuu noqdo waxay ku xidhan tahay oo kaliyeeta labadan ruux ee isu galmoonay xarig ma ka dhaxeeyay xarig sax ma ka dhaxeeyay intaas ku xidhanta hadduusan xarig sax jirin ilmuhu waa ilmo aabalaan allahumma hal xaalo hadii uu moodayay inay xaasu tahay oo shubha dhacday oo ismoodsiis dhacay
ama nikaax faasida ugu galmooday oo markaa uu moodayay inay xaas u tahay xalaal u tahay markaasi waxa weeye ilmaha waxaa laga dhigaya ilmo sharci ah bimacnaa waxa weeye shubhadaasi ismoodsiiska uu ugu galmooday ayaa ilmaha ka badbaadinaya inuu aabba la'aan noqdo aabba yani waxa weeye ninkaasaa markaa aabbo ilmo sax uu noqonaya ilmo sharci uu noqonaya xaaladaas marka laga reebo asal ahaan ilmaha waxa aabba u yeela waa xadhigga maadaama ninkan gabadha boobay waalan iyo gabadha uusan xadhig u dhaxaynin ilmuhu waa ilmo aan sharci ilmo aan aabba lahayn waay wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa sheekh labada su-aalood ee ugu dambeysa darsigeenan maanta tan koobaad darsiga intaad ku jirtay baad ka jawaabtay waxay ahayd labada suuradood ee hadda aan soo marnay ghaashiya iyo sabix isma rabbika laclaa marka la dhammeeyo in la yidhaahdo calayhi salaam iyo allahuma xaasibna xisaaban yasiiran su-aasha ugu dambeysa waxaa weeye cadaygu soonka ma jebiyaa qolo wadaado ah ayaa igu yidhi wuu jebiyaa allahuma xaasibna xisaaban yasiiran iyo maxay suxuf ibraahim wa muusa calayhi salaam in la yidhahdo suurat alaclaa dhammaadkeeda suxufi ibraahiima wa muusa calayhim assalaam ma soo aroorin meesha bidaat suuradda marka la dhammeeyo in halkaa la yidhaahdo calayhim assalaam oo halkaasi lagu khaas yeelo ma soo aroorin laakiin waxaa sugan inuu nebigu yuri sal alla alay wasalam sida aada iigu salinaysaan ee a'immada ugu saliya marka waxaan u jeedaa ambiyada marka waxa fiican ambiyada haddii aad magacooda marto inaad ku salido laakiin meeshaa khaaska suuraddu markay dhammaato ama soo aroorin mana sugna kadalika suuratu alghaashiya markay dhammaato ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum allahuma xaasibna xisaaban yasiiran ma soo aroorin yadan halkaa kuma soo aroorin waa khalad halkaa in la geliyo balse waxay ku soo aroortay saan yani suuratu inshiqaaq markaan soo maraynay soo sheegnay nebiga xadiidka caaisha ay ka warinayso sujuudda ayuu nebigu ku ducaysan jiray allahuma xaasibnii xisaaban yasiiraa ama suuradda dhammaadkeeda in la yidhaahdo iyaduna ma sugna nacam masalada ku saabsan cadayga ruuxu markuu sooman yahay soonka ma jebiyo wax culimoo yidhi cadowgu soonka waa jebiyaana ma jiro allahuma haddii cadayga wax ka dhashay aada liiqdo meesheeda waay laakiin cadayga ka caday keliya ah soonka wuu jebiyaa wax culimoo yidhi ma jirto keliyata imaamu shaafici iyo madhabka shaaficigaaba waxay karaahaysteen gelinka dambe ruux markuu sooman yahay inuu cadayday karaahaysteen waa karaaha waay waa karaaha jebin ma aha labadaa in la kala fahmay u baahan tahay imaamu shaafici markuu karaahadaasi cabirayeyna wuxuu ka qaatay xadiidka nebigu leh sal lay wasalam lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allah yacni khuluufka ruuxa sooman afkiisa ku yaala ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga ilaahay baa jecel marka wuxuu leeyahay imaamku oo masalada uu ku dhisay yani khuluufkii ilaahay jeclaaya afka ku yaalay ayuu cadaygu tirayaa waana wax daaco ilaahay ka dhashay yani shayga daacada ilaahay ka dhashay ilaahay jecel yahay udgoon in la zuuliyo ma aha buu leeyahay saasuu u karaahaystay laakiin dood baa ka jirto a'immada kale waxay ka doodayaan oo leeyihiin khuluufkani sideedaba wasakhda afka ku taalle cadaygu tiraya ma aha wasakhda afka ku taalla ama ilkaha ku taalle cadaygu uu baabi'inayo khuluufka taa lagama wado ee khuluufka waxaa laga wadaa calooshu markay marato ayay waxay soo saaraysaa qaac ama hawa ka soo baxaysa qaacaasaa marka afka isbedelkiisa keenaya kaasaa waxaa la yidhahdaa khuluufka marka almuhim waa fahamkaas imaamu shaaficina si u qaatay culimmada kalena si u qaateen mas'aladuna xataa imaamu shaafici iyo madhabka shaaficiga ma dhaafayso inay tahay inay karaahaysteen amaa soom baa jabaya ma ay lahaa nebigu markuu lahaa sal alla alay wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli wuduu yani ummadayda haddaana ka baqayn inay ku rafaado ku dhibaatooto waxaan amri lahaa inay mar kastay weysaysanayaan ay cadaydaan inay cadaydaan yani muusan kala saarin nebigu sal alla alay wasalam ruuxa sooman iyo kaan soomanayn gelin dambiya gelin hore ma kala qaadin nebigu sal alla alay wasalam amaa fahamka waa xadiiskaas oo culimmadu midba si u fahmay waana fahamka imaamu shaafici mana aha soom baa jabaye
waa masaladu waa karaahaysanaya waaye ciladuna wax weeye wuxuu leeyahay udgoonkaasaa meesha ka baxaya ee soon baa jabaya ma aha wallahu aclam daawadayaal su-aalihii iyo darsigii ka horiyey ee tafsiirka ahaa si toos idinkiiga imaanayay masjidka abubakar sidiiq magaalada nairobi uu noo soo jeedinayay sheekheena sheekh maxamed cabdi umal galabto naga intaa ciddii ay dhaaftay waxay dib ugu daalacan kartaa youtube-ka iyo facebooka masjidka sigiska ciwaankan uu yahay masjidka sigiska islii nairobi galabto naga intaan dib dambe ugu kulmi doona darsi kanoo kale ah waxaan idinkiiga tegaynaa sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu